السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي قاعدين سلام دمانتينا وحرجينا عافماد قبتين. الحمد لله أنا جنا وعافماد قبنا. أصحابتي قالي قامانتي توحاولنا تحسي ولا شيء هو أونلاين. إلهي سيجدا ونحرسته. إلهي جنده أو بشاريو. إلهي مرتلش عليها كديجو. أيضا إلهي قلبي جدا ودتشيو. الذي يقربذ كجريودين إلهي سمري إيمانها كسيو. dhammaan intay oo ka geeriyooday ilaahay samir iimaan ka siiyo asagana marti la jecel yahay ka dhigo waa la wada dhimanayaa adduunyadan qof joogaysa ma lahan qof kasta wuu dhimanayaa laakiin waa la kala horeeyaa ilaahay mawtul fajahana naga badbaadiyo ilaahay intii uu ka geeriyooday familka iyo qaraabada caruurta xaajiyada waxa dhanba ilaahay samir iimaan ka siiyo ilaahay u naxariisto ilaahay marti la jecel yahay ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistiisa faraha badan uu siiyo inuu gabadhaasna qalbiga uu u dajiyo kullu nafsun daa'iqatul mawt naf kasta geerida way dhadhaminaysaa ilaahay qaatimo xumo naguma dilo dhammaanteena ilaahay qaatimada noo wanaajiyo caruurta ilaahay ha u xafido ayadana ilaahay ha xafido niyadda ha u dajiyo isagana samir iyo iimaan ha ka siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu marti la jecel yahay uu ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa ayadana mid xilkeeda gudato waajibaadkeeda gudato oo si degan yacni si oo islaamnimo ku jirto wanaag ku jiro in ayadana ilaahay niyadda uu ugu dajiyo wanaagsan ayadana waa u ducaynaynaa ciyaalkan usoo duceeya adinkuna wuxuu dhan u ducayno anaga waxaan ka qaban karno ma lahan inaan u ducayno keliya ilaahay ducadeena qof waxaa jidad qaar ducadooda ilaahay waa aqbalaya intaasoo dhan u duceyso waxaa laga yaabaa qof ducadiisa inuu ilaahay u aqbalo marka aan u ducayno ilaahay gabadh niyadda ha u dajiyo waxaan ka baryaynaa ilaahay isaga awoodo wax kaste inuu ayadana saygeeda samir iyo iimaan ka siiyo oo niyadda uu u dajiyo asagana ilaahay jannada ugu bishaareeyo caruurteedana ilaahay u xafido caruurtoodana ilaahay u xafido asxaabta qaaliga gabadha usoo duceeya wallaahi bilaahi aad ay u xanuun badan tahay xanuun waaye markii maaragtay noloshaada meesha ugu muhiimsan qofka ugu muhiimsan ay ka baxdo laakiin waa sida iyadu sheegtay qofka la jecel yahay baa la ciqaabaa yaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo gabadha walaasheeda niyadda u dajiyo midada kale sawirkan fiiriya dadka koole nafta uga qaadeen qofku markuu uu asaga dhan wareersan yahay telefoon ma kara inuu ku hadlo murug wuxuu dareemayaa maba hadli karaba lixsaan gabadha telefoonka badan ka daaya ayadaa stress ku furan yahay ayadaa murugaysan ma hadli karto maxay ku jawaabtaa waxay ku jawaabto maba hayse ayadaa stress dareemayso qofku markuu stress dareemayo aad looma dhibo wax uusan awoodin dusha ma laga saaro ma hadli karta gabadhaas walaalayaalow telefoonka ha laga yareeyo ha laga daayo dadka intii la joogta ha u tagto intii aan la jooginna telefoonka badan ha ka daayo walba dadka ag jooga wareysta dadkaas waxa waydiiya laakiin ayadoo tacbaan ah boogtagsin danqinayso walaalayaalow ka dhaafa ilaahay ka baqa gabadha koolka badan iyo fariimaha yaalka ayadaa ka jawaabi karta laakiin telefoonka badan ka daaya ayadaa xanuun dareemayso markaasaa dad sawiraanta yacni waxay snapchat ka soo dhigtay qoraale soo dhigtay telefoonka ka daaya gabadha ha ku dhibinina u duceeya keliya u duceeya midada kale qofku maaragtay markii uu xanuun dareemayo wuxuu u baahan yahay in maaragtay qalbigiisa la ilaaliyo ilaahay niyadda ha u dajiyo u duceeya aan u duceyno anagoo dhan dhammaanteen aan u duceyno telefoonka ha laga kala yareeyo gabadha ilaahay ha u naxariisto ninkeeda saygeeda xaajigeeda ilaahay martida jecel yahay ka dhigo waxaan leenahay ilaahay jannada ha ugu bishaareeyo ilaahay kitaabkiisa midigta ha ka siiyo allaahuma aamiin adinkuna usoo duceeya dhammaantiina waxaa laga yaabaa inaa adinka ducadeeda la aqbalo qof ka mid ah anaga iyo naftirkeyga in la aqbalo dadka u duceynaya dhammaantood qaarkood in la aqbalo laga yaabaa oo dhammaantood la wada aqbalin marka ilaahay kuwa ducadooda la aqbala ha naga dhigo usoo duceeya gabadha walaasheena murugo xun ay dareemaysaa way ka xanuun badan tahay mararka kale oo dhan marka asxaabta qaaliga aad ay u xanuun badan tahay usoo duceeya gabadhaas masaakiinta oo niyad xun ay dareemaysaa yacni xanuun ilaahay iyadan mid ku samirta oo iimaankeedu uusan ku nusqaabin allah ka dhigo
ayadan midka ximideeda xilkeeda gudato ilaahay ha ka dhigo ciyaalkan ilaahay awlaad baari ah oo aan fisqoobin ilaahay ha ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa inay gabadhaas awlaadda uu ilaahay uu la koriyo isaga awooda anaga waxaan qaban karna male duco keliya aan qaban karnaa marka walaashay waxaan ku leeyahay niyadda ilaahay ha kuu dejiyo ilaahay qalbiga ha kuu qaboojiyo asxaabta qaaliga idinkuna u soo duceeya si fiican oo niyada ugu soo duceeya inuu ilaahay asagana uu qabriga u waasiciyo kitaabkiisa midigta ka siiyo martili jecel yahay ka dhigo ayadana ilaahay qalbiga u dejiyo awlaadda uu la koriyo awlaadna ilaahay baari uga dhigo kuwa wanaagsan oo baariyeyna ilaahay uga dhigo dhammaanteena noo wada duceeya ilaahay awlaadda baari ha nooga wada dhigo anagana iimaankeena ha noo qaboojiyo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay muslim naga dhigay oo iimaankana siiya mahad iskale usoo duceeya asxaabta gabadha usoo duceeya gabadha waa wareersan tahay stress xunay dareemaysaa xanuunay dareemaysaa qalbi jab niyad jab wax kastay dareemaysaa ilaahay niyadda ha kuu dejiyo abaayo raali noqo iska raali noqo niyadda ilaahay ha kuu dejiyo ilaahay adigana gadaashiis kuma fidneeyo awlaadana ilaahay ha kula koriyo abaayo macanto anagoo dhanna ilaahay nama fidneeyo alxamdulilah abaayo macanto niyadda allah ha kuu dejiyo intaasaan leeyahay idinkuna waxaa dhehaysiin idinkayna jirtaa usoo duceeya gabadhaas masaakiinta ah oo wareersan oo yacni dareemayso niyad jabka iyo stresska iyo murugada ilaahay murugada inuu ka dulqaado oo ilaahay qalbigeeda uu wanaajiyo ninkeedana ilaahay uu u naxariisto usoo duceeya